waan ku salaamay saaxiib. Ha u malaynayso waalidayga kala taggu inuu sahlan yahay. Haddii aad dhayal u haysatidna, gurigii Khadiija dhimatay looma bixiyeen sanadkii murugada. Qofna uma dul qaadan karo waayida dadka uu jecel yahay. Xataa nebiyadana ku dhaho, ku darso oo ma aanay hayn murugo hal sanad socotay oo ilaatay. Nebigu sallallahu alayhi wasallam ilaa dabayaaqadii noloshiisa afka ayaa ku hayay hadalhaynteeda. Dadka qaar markaad weydo intaad nooshahayba qayb bannaan oo kaa dhiman ayay ahaanayaan. waxaynu nahay aadami cad ka samaysan. Allah ayaa waxay qaban wixii aan gacantaygu jirin. Nebigu sallallahu alayhi wasallam ayuu yidhi isagoo u jeeda qalbigiisa. markaasay noqotay odhaha isku samirsiiyo qofka ay xaaladii la soo gudboonaataa. caawa keliga ayaa tahay saaxiib. sidii guri madhan oo dadkiisii ka hayaameen oo haawanaya ayaad keli u tahay. sidii boosteejo tareen oo guun ah oo laga guray ayaad keli u tahay. sidii damal buur fiiqeed ka baxay oo aana ciidano hoostiisa harsanaynin ayaad keli u tahay. weysayso, 2 ragcadood tuko, gacantaadana laabtaada saaroo dhee. allahayow qalbigayga yaanay maankaaga ku soo dhicin waxaan ka hayn hadalkii rabbiga ay ahaa qulnaa laa taqaf. waxaannu ku nidhi habaqin. kadib wax walba ilaahay u daa adigoo si yaqiinsan u og wax kasta oo kaa qaaday inay murtiyi ku jirto. intaad isu turayso uu isagu kaaga naxariis badan yahay. dhammaanba qadarrada rabbigaana ay wanaag yihiin. xataa haddii ay ku xanuunjiyaan dulqaad iyo dhabar adeeg muuji saaxiib oo hadlicin. ma tiid qof u hogta waayaha uu madaxiisu hoosgeeyee. laga yaabaa inay cid kale aad u tahay tiir ay ku tiirsan yihiin adigoo aan ogeyn. laga yaabaa dad badani inay ku haminayaan inay madaxooda hoos u dhigaan oo waayaha ay u liiqaan si marka ay arkaan adigoo aan liicayn ay sadkeeyaan oo kugu daydaan. maanka ku hay kuwa ku arka garabkooda iyo gaashaankooda iyagoo adaagtooda ku weyn tahay ee indhaha kaybidaysigale kugu eega iyo kuwa kugu aaminay ruuxdeeda jidkaas adag ee noloshaad ku rafiiqdeen. dhammaantood xasuuso dhibta ayaa dhayal kuu noqonaysa xataa haddii aanay dhibaatayad siran hayne. nabaadiina saaxiib.